waxaa loo baahan yahay in la dagaalamo mar kale oo Soomaali dagaasho waa inay koox Soomaali dagaasho koox waa inay soo baxdo Soomaaliya markaas halku imaan qabta kooxdaas waa inay dalka Soomaaliya gees inta ka bilowdo gees kale uga baxdo guri kasta oo xamar ku yaal markii uu yartaa waxa yaala bastoolata qaar waxa yaala daba jeexaya qaar basuuka yaala qaar waxa dhex fadhiya cabdibile ma meel saasa dawlad ka shaqeysaa dadka bad maxaa u sheegaysi ma meel saas ku taal ayaa nin la soo doortaa dhigi kartaa anagu marka Soomaali hadaana hadii aan ay dadka Soomaali ayna ku heshii karin dawlad ayna ku heshii karin haddana looma ogola inaan shalay waa noqon kartay aniga Norway aan ahay aniga Sweden aan ahay aniga Denmark aan ahay shalay waa lagu ogolay dawlad noqo waa lagu ogolay because markaas it was the starting point maanta lagu ma ogola inaad tiraado istidal waxa uu leeyahay Soomaaliya you are single political sovereign waxa tahay hal wadan oo kaliya tahay adaa laga rabaa inaad yeelatid dawlad ku maamusha okay haddii marka ayna jiro oo na jirin cid noo imaanaysa aysan jirin waxa ka sab noqon doonta maalmaha kamid 2030 kamiya 2040 kamiya 2050 kamiya ani I cannot tell you waxa ka sab noqon doonta maalmaha kamid inay soo baxdo koox Soomaaliyeed oo cusub oo nationalista oo qoryo sidita ma berberi ka imaanayaan ma Garowe ka imaanayaan ma Gaalkacyo ka imaanayaan ma Baydhabo ka imaanayaan ma Kismaayo ka imaanayaan ma Cadalay ka imaanayaan ma isku wacaasay ka imaan meel alla meesha raba ka yimaadeen waa inay timaado koox Soomaali ah oo ka adkaata kooxaha kale oo dadka hubka ka qaada oo dawlad samaysa shacbi hubaysan tan hadda ma toosayso sababtoo in u toosayn shardiga koobaad ee dawladnimadu wuxuu yahay monopoly of violence dawladdu waa inay leedahay awoodda adeegsiga xooga sharciyeysan guri kasta oo xamar ku yaal markii uu yartaa waxa yaala bastoolata qaar waxa yaala daba jeexaya qaar basuuka yaala qaar waxa dhex fadhiya cabdibile ma meel saasa dawlad ka shaqeysaa dadka bad maxaa u sheegaysi ma meel saas ku taal ayaa nin la soo doortaa dhigi kartaa ka shaqeysay institution maya waxa loo baahan yahay in la dagaalamo mar kale oo Soomaali dagaasho waa inay koox Soomaali dagaasho koox waa inay soo baxdo Soomaaliya markaas halku imaan qabta kooxdaas waa inay dalka Soomaaliya gees inta ka bilowdo gees kale uga baxdo sida hadda Suuriyiin sharc kooxdiisa inta kale hubka ma ka dhigay macal kooxdiisa xafis ma ka dhigay Taliban Afghanistan hubka ma ka dhigo waaya waa saas way Tigray markay qabsadeen Ethiopia hubka ma ka dhigay Museveni markuu qabsaday Uganda hubka ma ka dhigay RUF markay qabsatay Burundi hubka ma ka dhigtay hal kale kuma muuqdo hal kale ma jiro waa in la hore soo dagaalanay mid kale ma jirto waa in mar kale la dagaalamo ilaa laga keenayo dawladnimo halka warata ilaa inta laga keenayo dawlad Soomaaliyeed waa in la helaa koox Soomaaliyeed ma waxay ku imaahayeen diinay ku imaahayaan ma waxay ku imaahayeen deegaanay ku imaahayaan but they must be nationalist dawladda ama leedahay laftirkeeda ha adeegsato xataa xooga oo ma kari karto ma kari karto koox nationalista oo aan foreign shaqo ku lahayn oo isku duuban waa inay yimaadeen dadka waa in hubka laga qaado shacbi hubaysan dawlad looma dhiso marka dawladdan waa inay baxdaa dawladdan waa inay baxdaas dawladda maaha waa inuu systemkan baxa oo Djibouti ka yimid oo soo maray imbigati soo maray oo Garowe soo baxay dawlad waa dhisi weeye 25 sano oo qaatay waa inuu baxo oo maamul cusub iyo wada cusub iyo xoog cusub iyo dhiig cusub iyo fikir cusub in la keeno